السلام الله عليكم أصحابta sharafta iyo qiimaha u saaxiibka soo dhawaada maanta waxaa jira kulamo horyaalka Premier League waxaa ciyaaraya kooxda Man City iyo Tottenham, Arsenal iyo Brentford, Chelsea iyo Crystal Palace, sidoo kale Liverpool iyo Norwich City, waxaa ciyaaraya kale xaggaas La Ligaha Real Madrid, Alaves. kulanka ugu weyn isbuucana waxaa ka mid waa kulanka Man City iyo Tottenham, kaasoo ay Pep Guardiola iyo Conte ay madaxa isgelin doonaan gegida Al-Ittihad Stadium. Manchester City ayaa sii xejisan doonta dhibcaheeda 9 dhibcood ah ee ku hayso horyaalka Premier League, kaasoo ay maxaa la dhahaa say aynu ugu soo dhawaan kooxda Liverpool oo ku jirta kaalinta labaad ee horyaalka Premier League. kale kooxda Tottenham ayaa iyaduna doonaysa inay kor ugu soo kacdo rajadeeda ah ka soo qaybgalka UEFA Champions League xilli ciyaareedka dambe ee soo socda, iyagoo doonaya dagaal inay u galaan kaalinta afraad ee horyaalka Premier League, kaasoo ay xoogga saari doonaan say ku badin lahaayeen kulankan. Artan ayaa noqon doonta ciyaar labada kooxood ay doonayaan in dantooda u fusho, waxayna caawa markay tahay 8:15 fiidnimo saacada Geeska Afrika ay ciyaartaas ka dhici doontaa garoonka Al-Ittihad Stadium. kale waxaa ciyaari doona oo iska hor imaan doona kooxda Crystal Palace iyo kooxda Chelsea, kooxda Blues oo aan muddo ciyaarin horyaalka Premier League, kaasoo ay kadib markii dhawaan taashka loo saaray koobka kooxaha adduunka ayaa Chelsea waxay ku soo laabatay kulanka Premier League iyadoo la ciyaaraysa kulanka London Derby, kaasoo ay Crystal Palace ka hor imaan doonaan. noqon doona kulan aad u adag maadaama labada kooxood bay ka wada tirsan yihiin magaalada London. Chelsea hadda waxay isku dayi doontaa inay badiso kulankan maadaama ay doonayso inay kaalinteeda sii haysato oo ay sii ilaashato kaalinteeda saddexaad ay ku jirto, kaasoo hadday ay guuldarro la kulanto ay u soo dhawaan karayaan kooxaha ka dambeeya kaalmaha afraad iyo ku jira sida Manchester United, dhanka kale West Ham, Arsenal, dhammaan kooxahaas sidoo kale Tottenham aan ku daray u soo tartamaya inay kaalmaha afraad ay rajo ka qabo oo maxaa la dhahaa saddexaadna doonaya inay soo cariirsadaan. marka gamekaasna wuxuu noqon doonaa game adag oo labada kooxoodba ay dagaal u geli doonaan si ay u badin lahaayeen. dhanka kale kooxda Chelsea ayaa faa'iido haysato maadaama ay ku soo guuleysatay koobka kooxaha adduunka, waxay doonaysaa iyadoo faraxsan oo jawi degan ku jirta inay maanta ka badiso kooxda Crystal Palace. dhanka kale kooxda Arsenal ayaa iyaduna maanta waxay la ciyaari doontaa kooxda Brentford. Arsenal ayaana isha ku haysta inay kor u soo qaado hamigeeda ah kala sarreynta horyaalka Premier League, iyadoo doonaysa inay kaalimaha ugu sarsareeyo sida kaalinta afraad ay dagaal u gasho siday uga soo qaybgeli lahayd UEFA Champions League xilli ciyaareedkan soo socda, kaasoo ay hadday ay maxaa la dhahaa badiyaan rajadooda ah inay kor u soo kacaan oo ka soo qaybgalaan UEFA Champions League xilli ciyaareedka soo socda ay soo noolaan karayso. haddii laga badiyana ay rajadoodu sii dhima doonto, waayo kaalinta afraad waxaa ku tartamaya sida kooxda Tottenham, West Ham, Manchester United, dhammaan waxay u ordayaan inay kaalinta afraad iyo kaalmaha saddexaad inay soo galaan si ay maxaa la dhahaa ayna u lumin rajadooda ah inay ka soo qayb galaan xilli ciyaareedka soo socda UEFA Champions League. Mikel Arteta ayaa doonaya inuu shax xoogan ku soo galo kulankan soo guul weyn u gaadho ciyaartan. kale waxaa ciyaaraya kooxda Liverpool iyo Norwich City, kaasoo ay maxaa la dhahaa ciyaartan ay iyaduna kooxda Liverpool ay doonaysa inay bacsato kooxda Man City. kooxda Man City oo ku haysa Liverpool ay ka hadhi maayo, Liverpool ay ka hadhi maayo. marka Liverpool waxay tii meel aan kaga hadhno sanadka maanta Man City meel aan kaga hadhno ma jirto. marka kooxda Liverpool caawa kooxood ayaa doonaya inay sanadka midkood ay qaadaan horyaalka Premier League, wuxuu ka dhici doonaa Anfield fiidnimada caawa. kooxda Liverpool ayaa waxay qaabilaysaa kooxda Norwich City, kaasoo ay kooxda Liverpool sanadkan 2022 ilaa iyo hadda wax guul darro ah lama kulmin. marka caawa ayay doonayaan inay kooxdan ku jirta kaalmaha ugu hooseeya loogu noqdo horyaalka labaad ee Ingiriiska
marka kooxda Liverpool ayaa doonaysa inayna wax guuldaraac caawa la kulmin ama bareeja sayna uga hadhin baacsiga ay baacsanayaan kooxda Manchester City ka dambeeyaan 9 dhibcood marka waxay rabaan inay guuleystaan say maxaa la dhahaa ugu sii dhawaadaan kooxda Man City oo kaasoo caawa haday ama bareejo gasho ama guuldaro la kulanto ay soo gaabin doonaan farqiga u dhaxeeya iyaga iyo Man City kaasoo Liverpool ay kor u sii haysato game u harsan oo horyaalka Premier League waxa ku cusub Liverpool waxa ka dhaawacmay Diogo Jota Liverpoolna waxay ku soo gali doontaa ciyaartan shax adag maadaama ay maxaa la dhahaa iyagoo faraxsan oo soo badiyay UEFA Champions League ay soo gali doonaan kooda soo gali doonaan kale waxa jira kulanka Real Madrid ee La Liga iyo kooxda Alaves kaasoo caawa ciyaari doonaan kooxda Real Madrid ayaa hadaba doonaysa inay ku soo laabato wadada guusha kadib markay guuldaro xanuun badan ay kala soo kulantay kooxda PSG ee UEFA Champions League sidoo kale kulankii ka horeeyay ay bareejo gashay oo maxaa la dhahaa bareejo lagu qabtay marka waxay doonayaan inay wadada guusha ku soo laabtaan kale kooxda Alaves ayaa iyaduna xilli ciyaareedkan doonaysa inay ka badbaado heerka labaad ee horyaalka La Liga Alaves hadaba waxay ku jirtaa booska 18aad ee horyaalka La Liga Real Madrid ayaa hadaba waxay 4 dhibcood ku haysaa horyaalka La Liga iyadoo ay ka sareyso kooxda Sevilla oo booska labaad ku jirta kulankan caawa Real Madrid waxay doonaysaa inay madaxa ku dajisto lana sii fogaato horyaalka La Liga si ay maxaa la dhahaa uga fogaato guuldaro soo gaadha waxayna doonayaan inay sanadka qaadaan horyaalka La Liga sidoo kale ceebtii ka soo gaadhay PSG ayay doonayaan inay iska maydhaan kooxda Carlos Ancelotti caawa waxa ka go'an inay guul ay gaadho ayaan hadaba ku soo gabagabayn doonaa wararkii ciyaaraha insha Allah yaal subscribe-ka iyo like-ta iyaan laga ilaawin ku cusub tahayna subscribe isar gabaleelkana furo si ay u noqotid qofka ugu horeeya ee la socda barnaamijkayga